Soomaaliya waxay ku jirtaa xilli doorasho. Waxaa la diyaarinayaa doorasho dadban oo lagu soo xulayo xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka si sanadkan loo doorto madaxweyne. Inta badan niyadda shacabka Soomaaliyeed waxay u jeedaa doorashada guud. Waxayna niyadda qaranku u weecan tahay dhinaca doorashada guud. Puntland waa xididka ugu faca weyn dawladaha xubnaha ka ah federaalka. Waxaana hadda ka socda qabanqaabada doorasho ilays ah. Waa qorshe tijaabo ah balse waa fursad dahabi ah oo dimuqraadiyeyn karta doorashooyinka Puntland. Waxay tusaale ifaya u noqotay Soomaaliya inteeda kale. Doorashadan hordhaca ah waxay ka dhici doontaa 3 degmo, Qardho, Ayl iyo Ufayn. Doorashadan waa tii u horeysay ee goboladan ka qabsoonta oo hal qof iyo hal cod ah ilaa 1969. Muwaadiniinta ayaa iska diiwaangeliyay deegaan doorashooyinkan iyagoo laga qaaday faraha iyo indhaha si ay u codeeyaan. 9 urur siyaasadeed ayaana ku tartamaya. Walina waxa socda ololaha wacyigelinta muwaadiniinta. doorashadan hordhaca ah ayaa lagu hanweyn yahay inay noqoto xor iyo xalaal. Waxay durba si ku meel gaar ah u bedeshay siyaasadii 3 degmo. Siyaasadii nidaamka qabiilka ku salaysnayd waxay u xiibsibatay hanaanka xisbiyada badan ee dimuqraadiga ah. Waxa nidaamkan ka soo maaxanaya hanaan siyaasadeed oo ku salaysan fikir, qadiyado, matalaad iyo adeegyo bulsho. doorashada waxa maamuli doona guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ee Puntland. doorashadan hordhaca ah waxay cod iyo awood siinaysaa muwaadiniinta. Waa fursad talada ka soo qaybgelinaysa dadka qaar oo ka takoornaa miiska siyaasadda sida dadka la haybsooco, haweenka iyo dhalinyarada. Haddii lagu guulaysto doorashadan oo ay noqoto mid xor iyo xalaal ah, waxay guul xornimo u tahay dhammaan muwaadiniinta Puntland iyaga oo si siman oo dimuqraadi ah ku geli kara doorashada guud ee Puntland. doorashadan waa bilowga geedi socodka dimuqraadiyiinta Puntland. Waxay horseedi kartaa dawlad wanaag. sidoo kale waxay noqon kartaa asaas lagu dhisayo hanaanka dimuqraadiyiinta Soomaaliya.